dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in ku qancisteeda xukunka ka soo baxa dacwadda baddo uu ku xidhan yahay hadba sida ay wadda xaragto danteeda iyada oo u eegaysa qarannimadeeda. Waxa kaloo ay ka hadashay in dib u dhigista dhageysiga dacwadda ee maxkamada caalamiga ahi uu ku yimid isfaham ay gaadheen Soomaaliya Kenya oo arrintan ka yeeshay kulan, taas oo ku tilmaamay in kasta oo ay ka yartahay waqtigii Kenya doonaysay oo sanad ahayd, haddana in ay ka dhigan tahay inay heshay wax badan oo kamida wixii ay doonaysay. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo 30 Oktoobar marti ku ahaa barnaamijka baxa telefishinka Citizen ee dalka Kenya ayaa dhinaca kalena madaxda dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay ku guul dareysteen xurmaynta runta ah in wada jirka iskaashiga lagu gaadhi karo wax ka fiican waxa khilaafka iyo xumaanta lagu gaadho, isagoo dhinaca kalena ku faanay in dalkiisa uu Soomaaliya daryeel gaar ah siiyo kuna maalgeliyay hanti iyo dhig iyo in aanay jirin wax dhibaato ah oo dhex taala labada dad ee Soomaaliya iyo Kenya, balse uu khilaafku ku kooban yahay mas'uuliyiinta dowladda. Taasina ay khasab ka dhigayso in Kenya ay galaangal badan iyo isku dayo wada hadal la sameeyo Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay. Remember, we were on the way to resolving this issue. Tahay sanadihii 2014 iyo 2015 arrintan xalinteedu meel fiican ayay mareysay. kahor intii aanay si kadis ah u go'aansan dowladda Soomaaliya in ay maxkamad u gudbiyaan. waxa aanu weydiinay sababta ay maxkamadda caalamiga ah noogu gudbinayaan. waayo maxkamadda Hague waa maxkamadda marka xal kale la isla gaari waayo in loo gudbo. aynu marka hore isla eegno dhammaan fursadaha kale ee jira ee aynu arrintan kaga wada hadli karno deris ahaan. ma aha in aad maxkamad ilo ordo inaga oo wali wadna ka wada xaajoodka khilaafkan aad adigu ismootisay in uu jiro, laakiin aan anagu ognahay in aanu jirin, which we know doesn't exist. Mashaariya waxa uu ku celiyay dooda Kenya ee ah in xuduuda badda jeexisteedu ay noqoto xariiq toosan oo raacsan xuduuda badda ee Kenya Tanzania Mozambique. mar la weydiiyay inta ay leegtahay darajada uu ka qabo in arrintan wada xaajooda lagu dhameeyana waxa uu sheegay in hadba ay sidii hore ka soo furfurmayso kulamo iyo wada sheekaysi labada dhinac dhex marayna ay muujinayaan isu soo dabaca. Our challenges with haddii aan si daacad ah u waramo arrintaas imakaba waa iska furfuran tahay. waxa aan u jeedaa waa ay bilaamatay in aan wada hadalno. dhowaan xogayaha maamulka ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Soomaaliya joogay si uu wada sheekaysi ula yeesho. waxa lagu casuumay shirka jaalka horumarinta Soomaaliya oo Muqdisho ka qabsoomay. waayo waxa aanu gacan ka geysanay horumarka Soomaaliya. Kenya waxay ka mid tahay dalalka gacanta ka geystay. si fiican baa xogayaha loo soo dhaweeyay. anigana sheeko aad u muhiim ah ayaanu yeelanay dhigayga Soomaaliya markii aanu joognay magaalada Hague ee xarunta maxkamadda caalamiga ah, taas oo aanu waqti fog ba ahayn markii aanu ka wada hadalnay dib u dhigista dacwadda ee aanu ku guuleysanay. So we pretty much got what we wanted. Mashaariya Kamau waxa uu ka hadlay xiriirka Soomaaliya Kenya ee waqtigan oo uu sheegay inaanu aad u diiranayn, laakiin haddana uu jiro maadaama ay wali hogaamiyaashii labada dowladood wada hadlayaan isku socodkii labada dhinac iyo ganacsigiina uu fiican yahay. Xamse Xirsaxayd, wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika.